بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إلهي سبحانه وتعالى كلنا كان خير الله كدغو وإذا جوجني كدبنا إنه أبدكني dadkeena الله إنه حفظيه أنت على العفة قالين شيخ وإذا قصليه أنا كم أشرب هي حسوسية حرية معاوية رضي الله عنه وأرضاه بانين با مجلس كي سيمد معاوية فذولية مركب نيكا سوف فريستي والله يا وي وكاسو حكول إنك لا تجلس جلوس البغايا ورسيد الناقي حماية للوي كادو فريستي وكويري وما قسم وقت وما لكن كما هو علينا وحولي واتقانا سوف فلسطان مياه وإلا وحولي لا يهر سوف فلسطان واتقانا مركا واحد هذا كشيكيس أما ضدك ودي هذا حاتا مركا دم أذيع مغماني معاوينا يساق مدحايا بحناقيني وحويري نكي الرقم معايا فضولية سيدنا الكلام باكا الرئيس أنا على هذا قرد الرأي الفضولية أجوال مسكتة يكون دران حين يسوع حسوسي سمان لويتو نكن صومالي الله يركي أحمد ناصر نكن لا اسماعي نكن كلام ما جاي وحسوا قري وحوير نيو اسمه بدل كذا بعشان راتبه تدل هذا كله توي هوان كسيق بدلان هذا نازل كوا علينا وحيرني هو نقدرين يا أبا هو قدرين يا أنا ما أقانه خبرة بدل الأولى هذه باشا قلت لك وقشة خالد قصلي وبركي الكوميتشي الواحد صلي وأقر إلا عبصنا مدنا باشا الله سعدان قدر إلى هاي وحان السيرة هذا عنيكم وحان السيرة هذا حديث حاجر تشيرت الدجال مركو إيمان أيوه ضد سئلنا سخانة وحبا ميسامين ونوح مبادئ وبدن وصلى عن لهيل ولا يجري إيمانتنا وحاسة صعداء وإن لا صامي ولا بدل نوذهي وعقل يوضع عقل الشمبرا لغوت المامسة ودول دوشة ودول دولية وكو إيمان دونا barahan bulshada waxaan isiri dadkii generationkii jiilka soo socda ama ay kiiba diyaarinayaan oo ninkii dajaal ah soo dhow yahay oo dadkii markii ilaahay baan ahayn dhaha wada daba yaaci lahaa loo diyaarinayaa oo caamadii qiyaamada ka mid tahay oo saa soo dhowdahayna waa isri masalada cifada hadaan usoo laabto ereyga cifadu waa erey carabi ah si koobanna macnihiisu waa dhowrsoonaan iyo qofku inuu iska ilaaliyo waxa qiimihiisa saxda ah wax u dhimaya rabbigii ka fogeynaya wanaaggana ka durkinaya inuu qofku waxyaabahaas oo kale iska ilaaliyo baa cifada iyo is-ilaalinta la yidhaahdaa marka maadaama ay badan yihiin waktiguna kooban yahay saddex tusaalaan soo qaadi oo saddex baab oo kala duwana midda koobaad waa mid oo saddexda baan is leeyahay arrintaan ka hadlayno bay xiriir la leeyihiin midda koobaad cifada sharcigu nusuustu waxay isticmaashaa markay ka hadlayso qofku xumada zinada iyo faaxishada foosha xun in la iska ilaaliyo oo xagga gogosha inuu qofku iska ilaaliyo xaraam inuu ku dhaco oo gogol dhaafo oo uu zino galo ama si kale haddii loo yiraahdo qofku cifo waxaa looga jeeday oo ka mida macnaheedu inuu zinada iska ilaaliyo farjigiisa iyo shahwadiisa oo xaaraanta iyo waxa gaarsiinaya gogol xaadhka waa uu ka ilaaliyo
من الله يحليه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله هايس إلاليانو معصيادة iyo gogol dhaafka iyo tumashada ha iska ilaaliyaan dadka aan awoodin in hadda ay guur xalaale helaan oo sameeyaan mid xaaraan ha iska ilaaliyaan marna waxyaabaha gaadhsii marka labaadna waxaa la yidhi dadka wanaagsan markii la ammaanayo waxyaabaha lagu ammaanay waaladiina hum lifuruujihim xaafiduuna ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum kuwa shahwadooda ka ilaaliya waxaan u bannaanayn oo xaaraana wey marna waxyaabaha iyada gaarsiiya oo qaawanaantii in la yska ilaaliyo xataa cimri iyo da-ba aada gaadhiye inaad asturnaanta ku dadaasho baa cifa la yidhaahdaa ilaahay mar waa ka ilaah walqawaacidu min annisaai allaatii laa yarjuuna nikaaxan falaysa calayhina junaaxun an yadacna hiyaabahuna gayra mutabarijaatin biziina wa an yastacfifna khayru lahuna haweenka waayeelkaa in hadda damac iyo shahwo iyo cidnaba ka damcaynin iyaguna ayna ku jirin hadday khimaarka iyo marada madax iyo meel ka banaanado iska dhigaan dhib ma laha haddana saasay tahay inay is ilaaliyaan oy asturnaadaan oo dhowrsoonaadaan baa u fiican oo u khayr badan saasaa laga doonayaa haddaba dadkii yaryaraa iyo waayeelkiiba waa laga hadlay marna waxaa la tilmaamay indhaha waxaa xaaraanta ee waxaa kuu jiidaya inaad ka ilaaliso inay tahay oo waxaa la yidhi waqul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum ragga waxaad ku tiraahdaa mu'minkiihii qof kastaoo ragga ama labooda oo mu'mina waxaad ku dhahdaa indhahoodana waxyaabaha xunun fiirintooda ha ka ilaaliyaan farjigooda iyo shahwadoodana waxyaabaha xunxunka ha ka ilaaliyaan sidoo kale dumarkana waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahuna intaasoo dhan waa cifadii cifatu lfarji la yidhaahdo ama cifatu shahwa hadday kuu suuroobi weydo naftuna shahwadii raadinayso gaar ahaan da-yaraad tahay guurka xalaasha ah sharcigu dhiirigeliyey hadday kugu adkaatana dadkii waalidkiina waa lala hadloo hala fududeeyaa la yihi hana loogu kaalmeeyaa la yihi hadday intaasoo dhan ay suuro geli weydana facalayhi bisawmi fainahu lahu wijaaun baa la yihi soonka ku dadaalo macnaheedu waxay tahay indhahaagiina ilaali dhexgalkaagiina ilaali waxa jirkaaga nafaqada iyo enerjiga badan gelinayana iska yareen si waxan aada u dhowrsoonaato marka cifatu shahwati walfarji baa loo baahan yahay haddaad samayso taasaa la rabaa inaan samayno oo ah waxyaabahan daawashadoodii iyo isu qaawintoodii iyo dhexgalkoodii iyo inaad iska ilaaliso haddaad iska ilaalisa maxaad leedahay wax weyn baa la ballan qaaday waxaa ka mid a xadiidka abu hureyre bukhaari wariyey sabcatun yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dila ilaa dilu 7 qiyaamada marka la wada qaawan yahay qoraxduna dhowdahay carshiga ilaahay hooskiisa harsanaysa waxaa ka mid a warajulun dacathu imra'atun daatu mansabin wa jamaalin nimay banaanka ugu soo baxday u yeedhay isu soo qaawisay dharka usoo dhigatay gabadh aada u qurux badan oo la wada jecel yahay kadibna yihi innii akhaafu llah walilahi baan ka baqaya waxaa nala dhaaf sameeyey tusaale waxaa layna siiyey nebi yuusuf naa qurux badan oo gurigeeda uu joogo odaygiina maqan yahay baa waxay tihi waraawadatu alatii huwa fii beytiha can nafsi waqallaqat ilabwaab way damacday oo markaasi albaabadiina soo wada celisay soo wada xidhay wa qaalat hayta lak kaale bay tii aynu sarirta aadna dee
meeshuu isaguba raadsan lahaa nin dhallinyarihii baa la soo doontay albaabadana loo soo xiray maxaan sameeyaabaad dhihi lahayd oo qadaadkaad xoqan lahayd laakiin wuxuu yihi macaada allah inahu rabbii axsana mahwaaya ilaahay baan ka magan galayaa aan ka baqaya waxay dhaxashiisay inuu dadkii oo dhan boqor u noqdo yatabawa minhaa xayu yashaa waxaa layna tusay oo kaleeto nin gabadh raadinaya muddo dadaal badanna u maray oo diiday markii dambe ay dan iyo duruuf gabadha hayse ay mudatay oo abaardee kusoo dhacday xoolo la-aanoo naf hayso oo yihi ha sax xoolo waan hayaa laakiin dee tumashaad iga diiday haddaad ogoshahay xoolo waan bixinayaa oo naf ay tiri waayah wixii markay ka qaadatayba waxay tiri waa yahay laakiin niyo ilaahay ka yaab kadibna ilaahay dartii isaga tegay markii dhaguxu kusoo dumoo tol iyo ciidan aan lahayn iyo wuxuu xasuustay maxaad maanta ku baxsan kartaa maalintii buu ilaahay ku baryey dhagaxeena intuu u baneeyo dhinac uga durkay bay ka baxeen ay ku badbaadeen abaalkaasaa la siiyey adduunya inuu badbaaday aakharana qiyaamada la harsaday yuusufna adduunka madax lagaga dhigay haddaad waxaa iska daysood wanaagga xaggiisa aadana nabiga waxaa ka sugan min xadiidi abi hurayrata nasaa-i wariyeen saddex ilaahay baa u ballan qaaday inuu u kaalmaynayo halaaatun xaqun cala allaahi cawnuhum ilaahay xaq bay ku leeyihiin saddex inuu garab istaago o u kaalmeeyo waxaa ka mid a wannaakixu aladii yuriidu alcafaaf qof guursanaya oo xaaraan inuu iska ilaaliya doonaya masaladaa dhibkay leedahayna waa kii la yidhiba ninkii guur fiican helana diintiisa nus baa u badbaaday nuska kalun hala dagaalamo nusku maxay tahay naarta labaa lagu galaa ugu badan af iyo shahwadii iyo farji xadgudbay kan haddaad xalaal u heshay kii kaluun xakame waayo saas darteed cifadu waa cifatu shahwati walfarji waa ka mid meeshana meel lagu ba-ay weeyo caalamkan qaawanaanti iyo mar waxaa soo baxay shaneemooyin iyo riwaayadi iyo waa lagu baaba-ay iyo filimaan iyo musalsalaad hindiya iyo in la dacwado oo la turjumo waxay u yaabadnayd anoo kenya ka tegay oo macalimiin hindiya macalimiin noo ahaayeen wax yar oo salaanti iyo jajabsi af hindiya ka baranay baan soomaaliya tegay xaafad baan soo salaamay aan qaraaba nahay dhalinyaro filin hindi turjumayaan imid waa dhagaystay afartii xabeen aqiinay bas laftoodiibaaba si khaldan loo fasiraya midaan ku yihi walaalow afintiga xagaad kusoo baratay wuxuu yihi ma aqaanano kaas waa ku sakanaad turjumayso waxaa la sameynaya actionkaan fiirinayaa marku saa darteed mararka qaarkood waxaan la daawanayo wuxuu ku hadlayaba lama garanaye ciyaalkeennii baa chinese daawanaya oo maf chinese bay yaqaanaan maya saasuu leeyahy saasuu leeyahy marka badan la turjumaya mar bay filin hindi iyo musalsalaadkoodu socon jireen maantana beledan fisqi iyo xumaato badan baa laga sheegaya marka waxaa laynaga doonayaa cifada shahwadeenna iyo farjigeenna inaan ku dadaalno intaasoo abaalana waa ka helayna lakiin haddii la ilaalin waayo adduunkana waa cudurro iyo bahalo baa lagu salidayaa ummadihii berri shalay miyahayd mise maanta ahayd maalinka la xusaya maalinka aidiska h i v aids shalay ahayd miya shalay baa waxaan facebookyada ku arkayay soomaali badan oo hadlayso baalkaan la noolahayne oo rag iyo dumar bare inaad ila aragteenna waan u malaynayaa oo xaflado la qabtay ka hadlayo baalkaas haddaad maqasho qof is-ilaalin waayey oo waxaan dhubuqdan meel walba lala gelayo baa keenta qayb badan oo kamid a qaybihiisa kala duwan cuduradan jinni ee ceebtana ah dilaagana ah dembigii aakharana kuu dheeryahay adduunkana ceeb kuu dheerta caafimaad xumi iyo jab iyo xanuunna kuu dheeryahay baad ka dhaxli qodobka labaad tusaalaha labaad ee qabanaan dha waxaa weeye cifat lisaan cifada waxaa loo isticmaalaa carabkaaga inaad ilaaliso marar badanna xifdu lisaan baa la yihahda oo meesha lagu jabay meeshan
afka qofka muslimkiihi mar waxaa lagu yidhi waxaad ku hadasho waa kuu qoran yahay maalin bayna xisaabteeda kuu taallaa maa yalfidu min qowlin wa ina calaykum laxaafidiina yaclamuuna maa tafcaluun waa laguu qorayaa maalin qiyaamuu ku sugayaa hal eray ood meelahaa dhigtay ama aada samaysay ama commenti aada qortay oon diiwaan kuu gelaynin ma jiro saa darteed is-ilaali maxaa lagaa rabaa inaad tidhaahdo marka waquuluu linnaasi xusna dadka hadal wanaagsan ku dhaha sidii nebigu yihi man kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut wax fiican ku hadal ama iska aamus xadiidkii wuxuu ahaa aan filay cuqbata caamir ibna caamir inuu ahaa wuxuu yihi amsik calayka lisaanak afkaaga ka adka walyasacka beytuka gurigaagu ha ku deeqo wabki calaa khatiyatik gafkaad samaysana xasuuso xisaabtan oo tawba iyo ilaahtaad uga towbad keento ha kaa oheysa towbada mucaad ibnu jabalna markuu nabiga weydiiyey oo waxaan ku hadallama naloo qaban wuxuu yihi hakiladka ummuka hooyada ha ku weydee dadka waxaa naarta madax iyo gafuur loogu tuuraayo soo ma ahan wax afkooda uu ka hadlay marka waxaan aad duubayso aad hadlayso commenti qorayso farahu ku dhaqdhaqaaqayaan faruhu ku cuncunayaan soo waxaad maalin dhaweytaan ciyaal ciid kaarangeey meel beero waxaan arkay ciyaal soomaalida touristi yurub moodo boorsooyin waaweyn baa lagu raran yahay oo raxan baa loo socdaa nin baan ku irideedna war dadkan touristaha yurub ka yimaada dalxiiska yurub ka yimaadaan boorsa waaweyn ku aqiine ciyaalkeennii oo boorsada wada wata maxay yihiin waa tiktok buu yiri oo maxaa la sababay baan ku iri dhar intaasoo labis baa ugu jirta meeshaasaa la tegi kolba mid buu iska bedelayo sawir cusub buu geli waa laga tegi meel kalea la tegi inta labisee la watay baa haddana inta oo sawir lagu geli waa laga tegi meel saddexaad wuxuu yihi bishii ama usbuucii mar baa lasoo baxaayo waa wiilal iyo gabdhabagow saa markaa darteed waxaan kala soo noqday qaacide ah haddaa aragtay ciyaal boorsooyin ku raran qaxna ma aha safarna mee tiktok baa loo socda dadka in lasoo qaxay oo magaalada dab ka dhacay iyo balaa ka dhacday haboodi oo magaalada lagaba qaxin meesha waxaa ka jirana safarna ma aha dadkani ee sawir baa loo socdaa sawir baa boorsooyinka loo qaatay banaankaa la wareegayo kolla beer baa la tegiyo gabaari baa la qaadan oo meel kalea la tegiyo waxaa lagu leeyahay maanta albam baan soo buuxsadayo bishan ama toddobaadkan intaan sawiro kelibyo gelin lahaa saacad iyo maalin waan soo duubay hal su-aala idin weydiiyey marka intiina ninkii sameeyey bal gacanta taag idinkuma jira miyaa wax sameeyey ya u ku jira waa la xishooday in badan baa laga inay joogaan ninka wuxuu leeyay meesha waa la fadhiya calaa kulli xaal taasna maalin dhaweyto maarko yaa umaa u dhintay oo dadkan boorsooyinkii cadaanku ku raraan jiray oo kale tiktok sawiradii ugu raran yaa bay noqotay marka waxaan rabaa inaan ihahda cifatu lisaan nabigu wuxuu alay slam laysa almu'minu billacaani wala aطacaani wala alfaaxish albadi qofka muuminka maa qofka naclada badan afka xun bahashii cayla dhihi jiray sheekhu waa kuu sheegaye meeshan ay taallaba ciroolihii baa bilaabay oo carruurta intaan la gaadhin soomaali kuwa waaweyno rag iyo dumar balaho waa shay soomayda arag soomaaliduna waa mujtamacaadka dadkooda waalan dhagaysta horeyna waxaa lagu maamaahi jiray qabiilaa nin u waalan qosol kama dhigin haddaad wada weydiisay hebel wuu waalayi ku dhihi qofka ugu badan ee la daawada la dhegaystana waa kaa waalan afrikaankana waxaa la yidhi caalamkan ay kaga duwan yihiin meel hadda waa ka dhaca caalamku way cararaan afrikaanku ugu soo yacaa ama nacfiga kugu dhaafaa misleheenu ma aqaana kii waalaa iyo kii qaawanaa iyo kii caytamayey baa lagu soo wada yaacay saas darteed afxumadan iyo dhaqan xumadan iyo caytankan fara badan ee la baranayo waa cifatu lisaan baa qofka muslimkaa laga rabaa nabig ala wuxuu yihi laba qofka ii ballan qaada jannaan u ballan qaaday afkiisa inuu ilaaliyo xumaanta ka ilaaliyo farjigiisana xaaraan ka ilaaliyo
marna calayi slam waa ka yidhi almuslimu man salima almuslimuuna min lisaani wayadi afkaaga iyo adinkaaga ha laga nabadgalo gacmahaagiina commenti baan laga nabadgelaynin afkaagiina cay iyo wax xun baan lagaa nabadgelaynin saar darteed afkeenna inuu ilaashanaadaan u baahannahay tusaa qodobka ugu dambeeya in cifada u baahannahay cifatljuyuub waay lacagahan jeebka gelaya hadda markaan baxaan weyse u baxay baa igu horreysay tictok hadda lacag in laga sameeyo nin baa weydiiyo war waxaa meesha lagu yaacayo muuqasho iyo magaca jacayl ka badane waxoogay mamani iyo lacag baa gashay markaasaa yidhi haa wayaan bahal baa laga sameeyaa dadkuna meeshan xoolaa laga heliba haddii la yihahdo xaaraanba ha noqotee sida baalaley dab ku daadanaysaa loogu yaacaa laakiin sharcigeenu wuxuu ina baray labadaba cafiif inaad ku ahaato ood iska ilaaliso xoola hunguri xumadooda hunguri xumada adoon baahnayn aada meelo xun wax ka daydayayso risiqna kuuma badiso laakiin dembigay kuu badisaa xadiidkii jaabir waa kii nabigu ahaa waxaad ogaataan risiqa ilaahay qofna dhiman maayo isagoon dhammaysanin risiqi loo qoray fattaqu llaha waajmilu fi alab ilaahay ka cabsadoo risiqa si sharaf leh oon sharaftaadii iyo akhlaaqdaadii iyo diintaadii iyo dadannimadaadii aadan baabi'inin ku dayday xoolo dulli lagu daydayay oo diin la-aan lagu raadiyey oo dadannimo xumo lagu raadiyey xoolo qaawanaan lagu raadinayo oo jirka la iibinayo xoolo caytan lagu raadinayo oo akhlaaq xumo lagu daydayayo si aada xoolo u hesho caytan waan caytami dad badan baa i daawan lacag ba iga soo geli ujeeddadu waa lacagta waan isqaawin dad badan baa daawan kadibna lacag baa xayeysiisyadaas iga soo geli intaasaan ka sameeyey intaasaan lacag ka soo xareeyey bishan dee waagii hore waxaan naqiinay oon soo gaadhnay iyagoo la yidhaahda naaga xunxun oo dhilooyin oo jirkooda ka ganacsan oo lacag ka raadiya haddana waxay noqotay caytan lacag laga raadiyo qof bucaaya qabiil bucaaya ummaddan bucaaya maantao dhan bucaytamaya si dad badaa soo yaaca soo yaaca soo yaaca baa la dhahaa baa laigu yidhi ereyada cusub ee suuqa ku cusub soo yaaca kamida baa layidhi oo isu imaada oo kaalayadiibaa soo yaaca loo bixiyey baa laigu yidhi marka waxaan rabaa inaad xoolahan xataa qofkii baahnaa baa tuugsiga iyo dad inuu wax weydiista inuu iska ilaaliyo la doorbiday oo inuu cifa iyo qanaacana loo yaqaano wix ilaahay kugu qanciya tuugsiga iyo su-aashana sharcigu uu diiday oo la war iska ilaaliya tuugsiga wax weydiisiga waxaan filaya waqtigayga waan dhaafay waxaan rabaa inaan idhaahdo jeebkaaga waxa galaya hadduu xaaraan noqdo adduunyadana meel la ku gaarsiin maayo isagoo diintaadii iyo akhlaaqdaadii iyo dawdannimadaadii baabi'iyey duniyana meel la ku gaarsiin maayo aakharana cadaab iyo naar buu ku geyn adduunkana dadannimo xumo iyo diin xumo ku dhigi saa darteed war meesha meel xoola laga raadiya maaha xooluhu waa kuwa loo dhiiday ee laga shaqaysta ee xalaasha laga doono qofka muslimka ahna xoolaha xaaraanta lagu raadinayaay uma banaana xoolo xaaraan lagu raadiyeyna diin xumo iyo ducaan la aqbalin iyo aakharoo nabigu yihi cala ayumaa laxmin nabata min suxtin fannaaru awlaa bihi jir kasta oo xirjirkaaga koboc iyo dhaqaale iyo bulaal kasta oo ku gala xaaraanaad kasbatay waxaad mudan tahay aakhara naar iyo cadaab in lagaaga gooyo saas darteed waxaan ka cabaadaynay abaaro iyo colaado iyo dhibaatooyina dembigan aan samaynaynaa u sabab ah ilahi subxaana wa tacaala wixii khayrka allah ina waafajiyo towbadan allah ina waafajiyo abaabtan xumaatan allah inaga ilaaliyo mahadsantii waa idinku dheeriya raalli ahaada jazakum allah khayr assalaamu calaykum waraxmat ullah